السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأي سلام قلب وناكسن صاحب بيال وقلب أحدا. أنا جي نكاس على صعنا والويننا. تيمي يقدك يوح والوي بحيانه. دوني دي بحيران صغران بيسان ميل لو حيل بيتعصر بس. دوني دي بحيران أو ميل لو شراء يو بحب مشران. وحول بيحيران يهم حاتي ما شراء يانو كشكلنا ولا شيء بني آدم كتاجري. أنا جي كاكل تيم هذا هالك صعنا يلا وضع يلا. نبتقلي أن قبنا إلى حدير لما سيد سيشتري تونتو لكن لا هذا عافماتكم الحمد لله نبتقلي يا شرته بلايا الدنيا في شيء كورونا فيروس بعد الدنيا سوق لي وميل والبا حري ونلشي بني آدم كوي تاجن تهاي أو ميل والبا والله حري أو مقالين 24/7 أن دهر نانشري بس ما هو في بني آدم وصل لحصانين واحد عجيب كا مركب كم بقى كانوا يستاجل في شركة يستاجل مركب waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan oo dadkaasi u hoggaansameen meel walba u xidhan waxa weeye sidii loo xakameyn lahaa viruskan oo uusan maaragtay dadka dhan u gaari lahayn bulshada dhan uusan u baabiin lahayn ee loo xakameyn lahaa ay dadkaas oo dhan dadka balaayiinta ah waxay soo xukumeen oo guryaha u joogaan waa inay xakameeyaan wixii muuqaalka waxaan ugu talagalay marka muxuu ahaa waxaan ugu talagalay inagii way inagu yara adag tahay inay inaga dhaadhacdo in dadkii ay bahalkii u dhimanayaan dadkii ay u xanuunsan yihiin inuusan muslim iyo gaal kala lahayn qaarkeen baaba ku sheekeynayna inuu xanuunkani gaala kaliya ku socdo inagoo ogin Soomaali muslimiin ku dhinteen maalin kasta TV ka arkayna qoraalada riboodada la soo gudbinayo oo community-geena dhibaato u geystay ra'iisul hore Soomaaliya ayaa hadda u geeriyooday Soomaali badan baa u dhimatay Sweden Ingiriiska Talyaaniga waa maqlaysaa sida ay xaaladdu wuxuu yahay walba aad u arkaysaan social media ka arkaysaan aniga qaar saaxiibada kamid ah ayaa ka kacay qaar saaxiibada kamid ah ayaa hadda waxaan ku qabaa oo bukaan ah oo jiif ah Soomaaliya uu gaaray wax kale iska daa oo kaysas badan oo bukaan laga soo sheegaya xanuunkan ah marka garan maayo waxaan u aamin ilaahay in bahalkan xaaladiisu ay tahay in xaalad adag oo maaragtay aan cid gaara ciyaaraysan lahayn kuwa wadankeennii jooga ama Soomaaliya dadka jooga intaan gaarinba kuwa magaalada la degan baa waxay u dhaqmayaan sidii laftigooda waxa la sheegay in habeenadii ay kulmaan oo meelaha isugu yimaadaan oo sababta ay u kulmayaan wax la mamnuucay ay tahay inay kulmaan oo ay sarkaan oo ay isu yimaadaan oo xanuunka ay faafiyaan soo garan maysid akhi ma sii soconaysaa min israacin problem حاجة حاس كاوا هايستو ميلهان problem كفلاشيا كيف تسايهات marka sababta dadkani ay ugu hoggaansameen meel walba u xidheen waxa weeye in xanuunku uu safaafin maadaama qofku xanuun ku faafin karo isagoo ogeyn inuu qabo qofku isagoo ogeyn buu magaalada dhex maraya dadna xanuunku faafinaya wuuna qabaa ma oga laakiin eedna kuma lahan taa awgeed si looga hortago qof walba guriga joog loo leeyahay si xanuunkiina uu ku soo gaarin hadda qabtana aad u faafinin guriga hadda joogto waxa laga yaabaa in muddo kadib loo ogaado in xanuunka qabto dabeedna ama aad ka kacdaa meesha doontaan isla aadaan si doonto ha noqoto laakiin aan faafinin wixii oo aadan gudbinin marka dunidaas oo dhan waxa ay qaadatay ayaa waxa laga yaabaa inaan u hoggaansami weyno Sweden saas oo kale laga soo sheegay Soomaaliga waxaan ku qabaa inay isku kulmayaan soo arkeen dadna iyagoo dhan ay wada jiifsanayaan halkan inkastoo Soomaali badan aan la sheegin laakiin Soomaali ay jirto xanuunku maaragtay bukaano ah xanuunkuna cid walba uu gaarayo oo uu yahay waxa soconaya ilaahay aynu arkay inuu dunida ku soo daayay ay tahay ilaahay uu ka qaadi karo dunida iyo bini'aadamka ka saari karo oo aysan ahayn wax eed iyo leh cid isku eedeynaysa cid isku maaragtay dhaleecaynaysa midna aynay jirin haddana in loo hoggaansamo waa amirta inaan la kulmin way fiican tahay dadkan wada deganeen haddii la kulmayana la kala durko 2 mitir laga wada hadlo 1 mitir ilaa 2 mitir halka la gacan la isqaadin xabad kale isa saarin inaga dhaqamadeenu waa dhaqamo wanaagsan laakiin xaaladdan marka loo eego xanuunka oo kale waxaynu hay dadka u sahlan tahay inay si degdeg isu gaarsiiyaan way saagareynaa way salaameynaa 40 baa isugu imaanayna meel loo kala ah ama ku kulmayna dabeecadahaas hadii lahaan lahaayeen dadkan kale bir hore maran lahaayeen laakiin inaga hadii hal qof oo inaga mid ah uu bahalkan gaaro inagoo inuu gaarsiiyo way wax sahlan waa saacado maalmo ma xitaa saacado inuu wada gaarsiin kara marka hal loo hoggaansamo waa mirta dadka culimada ay soo saarayaan dhaqaatiirta ay hal qaato talooyinkooda hal qaato waa cajiib
qof wax bartay ama wadamada dadka wax bartay jooga hadduu doono iyuna waxba baranayna inay ka dhaadhici weydo war xanuunkani wuu gudbayaa walaalka ha u geynin ama walaasha ha u geynin ama hooyada ha u geynin ama ayeeyda ha u geynin ama asxaabteeda ha u geynin haddaad qabtay haddaadan qabin guriga joog hadduu qofku shaqo muhiim ah aadaya waa la ogol yahay hadduu lugeynayo hadda waa lugeyn waa la ogol yahay laakiin ha kulmina aad ha isu wada arkina haddaa kulmaysaan labo laakiin kala yar fogaada habeenkiiba waxaa la sheegay habeen niman baa dhalinyaraha saaxiibnaa baa ii sheegay golaha meelaha lagu kulkulmo habeenkii la isugu yimaada what's the point la isugu imaanayo xaaladda taagan waa la ogyahay qaarkood waxay ku leeyihiin maba aaminsaninba waxaan inuu ku dhici karo ama inuu muslimka ku dhici iyo wax la mid ah sheekooyin raqiis ah oo meelo dhow laga keenay ma garanayo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu xanuunkan naga dulqaado inta lala tacaalayo ama loo keenayo xal ama ilaahay uu cid ugu sababayo xal u keenaysa in faraha laga qaado oo go'aamada maaragtay loo awaamiirta dhakhaatiirta la qaato ayaan ku talin lahayn wacyigelinta la badiyo cid walba la gaarsiiyo qof walba oo Soomaaliya wacyigelin sameeyo bal way si weyn ugu adagtayna waxay naga dhacaan ilaahay ha inoo furay aynu maaragtay aragtida isla wadaagno ayaan ku talin lahaa wadankii dadaal badan baa ka socda oo laga hortagayo waa wax ilaahay lagu mahadiyo insha Allah in sida hawsha ay ku socoto culimadu ay ka shaqeeyaan sidii xanuunka looga hortagi lahaa ay aanay ka shaqeynin aragtiyo kale oo maaragtay ama dhibaato lagu geysanayo dadka ama aan waaqiciga ahayn ayna la shaqo tagin dadka u sheegin waa laga yaabaa aragtida inay khaldan tahay waa laga yaabaa inay kula saxan tahay ama kula khaldan tahay laakiin muhiimaddu waxa weeye viruskan uu jiraa wuuna soconaya wuuna faafaya sheekh ka tagi maayo wadaad ka tagi maayo adiga ka tagi maayo aniga iga tagi maayo cid kasta haddii xaaladdu sida ku socoto wuu soconaya ilaahay insha Allah inuu naga dulqaado dadaalna la sameeyo oo sababaha uu u fidayo lala dagaalamo wixii kale ee xal loo keeni karana xal loo keeno waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maxaa ku daraysaa wariyaha marxaba ku darayna maca salaam aniga nabi aywa barako